السلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. marka ugu horeysa bahda saxaafadda iyo dhammaan shaqaale weynaha wasaaradda oo rag badan ka joogaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. qodobka labaad waxaan rabaa inaan arrin yar ka idhaahdo hadalkii ka soo baxay odayaasha sharafta iyo karaamada iyo milgaha ku dhexle bulshada reer Somaliland ee dhexdhexaadinayay xisbiyada kana hadlay arrimo ku saabsan qaabkii doorashada iyo komishanka qaranka. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan isdul taago labada qodob ee kala ah qodobka kala dirka komishanka cusub iyo soo celinta komishankii hore. arrintaa ka dowlad ahaan iyadoo aanan ku dalin sifo badan oo ballaaran, dalku sida aad ogtihiin wuxuu leeyahay shuruuc iyo dastuur iyo golayaal. sidaa daraaddeed dowladdu waxay ka qabtaa wixii sharciga Somaliland ka qabo, wixii sharciga reer Somaliland ka qabo waana arrin sharci ma aha arrin maamul. waxaana isleeyahay mar haddii aynu aqoonsanahay inaynu ummad sharci kala hagayo nahay in aynu wixii sharcigu qabo sharciga dib loogula noqon. waxaanu aada iyo aada u soo dhoweyneynaa qodobada odayaashu soo jeediyeen ee ah in la is ixtiraamo. xukuumadda nafkeeda ku hadlaya waxaanu diyaar u nahay inaanu ixtiraamno, soo dhoweyno, wada shaqayn dhow la yeelano xisbiyada qaranka iyo qof kasta oo muwaadina oo dalkan ku soo kordhinaya fikir fiican oo dhismihiisa hore u waday. xisbiyaduna waxay ka mid yihiin qaab dhismeedka guud ee dowladda Somaliland iyo dimuqraadiyadda aynu ku naaloonno ee marar badan dalkeena ka dhacday. mar kastaa booskooda iyo positionkooda iyo goobtooda ku haboonaanshaha xisbiyadu diyaar ayay dowladdu u tahay, si dhowna waa loola shaqeynaya. qodobka waktiga ee kordhinta golayaasha ee ay ka hadleen odayaasha ixtiraamka badan, waxaan leeyahay qodobkaasi wuxuu u yaallaa xisbiyada. xisbiyadu muddo fara badan ayay ahayd oo waktigii kordhintu inta aanay dhicin ka hor inay ka wada hadlaan qaabka ay doorasho wada gelayaan iyo qaabka ay ugu heshiinayaan sida ugu habboon ee loo qaban lahaa doorasho. madaxweynuhuna inta aan ogahay xogogaalka dhaba ka ahay muddo fara badan diyaar ayuu u ahaa in doorasho dalka dhacdo. laakiin arrintaasi sida aada og tihiin xisbiyada way ka dhammaan weyday oo waxaa laga dhigtay waxaa issue noqday xubnihii komishanka ee markaa taagnaa. taas ayaa keentay maalin kasta sida looga hadlayay ama waqtiba waqti u riixayay inay isa soo taagto
waqtigii ugu dambeeyey ee muddo kordhinta golayaasha. maanta weli waxay u taallaa arrintaasi inay xisbiyadu ka wada hadlaan muddo kordhinta. dowladda iyo xukuumadduba diyaar waxay u tahay inay doorasho gasho. aad iyo aad baan ugu qanacsannahay in ummaddan lagu wado tala wadaag, inaynu wax badan iska dhegaysano, inaynu noqonno dad hore u socdaa oo dimuqraadiyadda aynu doorannay waddadeeda qaada. waxaynu u baahannahay inaynu inagoo wada jira si nabadgelyo ah oo aynu u wada dhannahay aynu tubta doorashada u galno. waana runtii talada qaabka doorashada iyo dimuqraadiyaddu waa sida qori isu dhiibka ah ee lagula kala wareegay xukuumadihii kala dambeeyey. sharaf bay kulligeen inoo wada tahay inaynu dimuqraadiyadda noocaasa gaadhno. waxaana qof kastoo muwaadin oo reer somalilandna kula talinayaa inuu xasiloonida iyo waxwada lahaanshaha iyo dimuqraadiyadda iyo sharciyadda dalkaba aynu wada dhowro. qof kasta oo muwaadinina wuxuu dalkan xaq ugu leeyahay inuu ku qayb noqdo systemka dowladnimo. qofba meesha uu joogana waxa uu xaq iyo sharciyan ugu leeyahay uu ugu daro wixii uu awoodi karo ee uu ku dhisi karo dalka. meel fiican baynu joognaa. aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaan warbaahinta qaranka iyo dhammaan odayaasha iyo dadka karaamada ee ila jooga. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.